السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب أيال ميل كستوى دنيا كجوكتان رمضان الكريم بإذن الله هاي صحابي كسر وهذا مقال كنا مانتا channel كنا وحانو كسر قادة دونا مانتا حبين تاني كمان حي يوتشابه هذا كوي كبحيان عيار تويجا نصيب درو كبدتي كوحو وصو عياري أردن أيكو جولستين جميل ليجو balse isagu aanan marna dhagaweynu gacantu saarin waliba waxaan u eegi doonaa qodobkeena maanta channelkeena barnaamijkeena kan ayaanu soo qaadan doonaayo oo aan ugu hadli doono waaki ciyaartooyga ku dhow hadda inuu diinta islaamku qaato ma Neymar ma Messi ma Ronaldo ma Hazard waxaan soo qaadan doonaa ciyaartooyga waaweyn ee kubadda cagta iyo waliba ciyaartooyga ku dhow ama ku dhawaadaba in uu islaamo walibana aad islaamka u jecel ayaan soo qaadan doonaa maanta waa imaamadan noqoto subscribe-ka noo saara channelka yaaqa iska tuura imaamadan subscribe-ka maxaa garbaha loogu haystaa waad iska tuuri jirteen imaamada iska tuura subscribe-ka channelku waa channelkiini si aad u heshaan macluumaadka taariikhiga ah ee kamal daariga dhacdooyinkii hore kubadda cagta wax walba oo ku saabsan ciyaaraha taariikhi hore recordski iyo waxyaabaha fanigaba halka baad kala socon doontaa entertainmentiga caafimaadka iscaataynta madadaalada iyo kuwa kale badaba subscribe-ka noo saara channelka marka anigoo qaar barnaamijka la socodsiinaya si maadaama aan channelkiina kale maxamed qadar haddii aad doonayso wararka maalinlaha newsyada ciyaaraha joogtada waxyaabaha maanta dhacay maxaa la yidhi intay wax marayaan horyaaladii maxaa ka cusub coronaviruskii ma dhamaaday yaa laga helay ciyaar yaa wareegaya yaa dhow waaw intaba waxaad u aadi kartaan channelkeena maxamed qadare halka channelkeena kale aad ka heli kartaan waxyaabaha taariikhiga waliba halkan waan isku wareysanaynaa waan ku kala warqaadanaynaa waan ku cimaamadaynaa waan ku faakiysanaynaa maadaama aan la awoodi karin in marka xagga la joogo warkii iyo falaqayntii guud la isu keenaa xagga waa kabtii karinta warka waxaa laga dhigayaa kabtii karinta waxaan iska boobsiinaya sidan baa la leeyahay miyadan habartii ku dhin waryahe suuqa markaa daado kabtii karinta kasoo dhig macnuhu iska soo suuqa iyo balka imow ha kabta iyo karintaba kasoo dhig baa lagu leeyahay على أي حال برنامجنا نقول قلي دونايو وحن كهالي دونا عيارتوي قدوني إيو سيدا أي وقولوا يهين دين تسلامك وحاجر عيارتوي بدن وضدك الصومالي دو أعطوا تاجران كم إذا نيمار وانين خطر بدن وديل بدن نكاس وانين إسكع عيار وحويان ضدك اللي قلت تريبو كم إذا بالدور جور هذه قاعدة الحيان لكن لبدا نبقى كل بدي بيان مالينيا وين دونا هدي لبدا إن هدي كفرستان عيارو وشقق بسوايو ولا ونقص خسارة بيكون قدام تان نيمار لكن يسقون حريفة لكن ما أنت يا أوجنبيناه ما أنت عيار يا ديل ما له هروح وجاري سنت ركوبات كوباس سنت قايم إنه كوباس بلونه كان برازيل كوباس عيارانه نيكاسو والعيارتو سومالي دوت كل كتها قدم بيان بكم جه ميسي وانيكر ولا قدم بيو رونالدو وانيكر ولا قدم بيو هازارد وين إمبابي يكوا كلا بدل لكن واحد جرا هل عيارتوي أو نخن كإسلام كجال واحد جرا هل عيارتوي أو جعل يعني قرآنك waxaa jira hal ciyaartooy oo aad islaamka u jecel waxaa jira hal ciyaaryahan oo ku dhawaaday in uu diinta islaamku qaato waa ninka waa lama joojiye markuu ciyaaraya marna ma joojin kartid waxa uu yahay ilmantadoorka garoonka waxaa la yiraahdaa waa gaanshaanuhu garoonka markay kooxdiisa hooseyso isaga ayaa kor u soo qaada waxa uu dhaliyaa habeenkii u baahan tahay gool waa ninka ku caan baxay tartanka Champions League waxaa magaciisu raada Master Champions League sababta loogu yiraahdo tartanka waxay tahay habeenka loo baahan yahay uu garanayaa waa ninka ka waa Master Ronaldo Master lama joojiye Cristiano ninka Portugalka ninka Portugalka arkaysaan waa ninka hadda u ciyaara kooxda Juventus ma u ciyaaray Madrid soo maray Manchester Lisbon Portugalka waa ninka ku guuleystay kamal daariga hadda ninka la yiraahdo Ronaldo mar badan ayaa caalamka la isku wareystay oo dadyogu dunida isku wareysteen horta Ronaldo ma islaamba maxay la dhaqanadiisa ayaa islaamka u dhow Ronaldo horta ma islaamba in muslimiya Ronaldo ayaa dhowr mar lagu murmay waxaad arkaysaa baraha bulshada markaad aragto isagoo khamiis xiran baad arkaysaa yani lagu sawiray yani wala leeyahay odagu waa islaamay laakiin waxaan arki doonaa muuqaalkiina ku eegi doonaa waxyaabaha ku aadan Ronaldo inuu islaam yahay in kale horta Cristiano Ronaldo ninka la yiraahdo Ronaldo waxa weeyaan horta muslim ah laakiin wuu jecel yahay islaamka waa ninka ugu dhow ciyaartooyga kamal daariga Messi Ronaldo ayaa kan ugu dhow inuu diintu qaato
inkastoo baryahan fajiista u dhex galay laakiin waxaa taas keentay Ronaldo inuu yani uu ku dhawaado mid islaamku qaato waxay ka dambeysay wuxuu la soo ciyaari jiray ciyaartoy islaama saaxiibadiisu waxay ahaayeen kuwa islaama macalinkiisa gaarka wuxuu ahaa Mesut Ozil waqtigiisii Madrid waxa uu lahaa halka ku lahaa Ozil iyo Benzema oo ahaa laba nin oo muslim xitaa waxa la sheegi jiray Cristiano Ronaldo inuu salaam ku salaami jiray oo waliba saaxiibo dhow ayuu hadda Cristiano leeyahay oo Carab ah ayuu leeyahay oo niman dhaqaaliyahan oo Carbeed oo saaxiib leeyahay Ronaldo waxa uu ku salaama dadka uu leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wali waqtigiisii Madrid Ronaldo salaanta islaamka ayuu dadka ku salaami jiray baa leeyahay marka saaxiibadiisii Madrid ee muslim ahaa sida Benzema iyo Ozil baa ka dhigay ninkan inuu aad ugu dhawaado islaamnimada marka Ronaldo muhiimadu ma ahan inuu isagu muslim ah laakiin muslimka iyo islaamnimadu wuu jecel yahay waa ninka ugu dhow ciyaarto inuu diinta islaamka ku qaadana hadii mid la dhahayo asaga baa ugu dhawaanaya sababtan waxay tahay sidan Ronaldo Cristiano Ronaldo marbu waxa uu yiri dad badan ma aaminsana inaan anigu quraanku aan aad u jeclahay quraanku dhageysigiisa dadku ma aaminsana qaarkood inaan aad u jeclahay laakiin runtii way xaqiiqda ogaadaan raggaas buu leeyahay ya mar walba oo Ozil uu quraanka akhrin jiray buu leeyahay anigu runtii waxaan dareemayo nabad baan dareemayo nabad wanin aan muslim ahayn baa sida dhahaya waxaan dareemayo mar walba Ronaldo waxa la sheegaa inuu soo dhagay jiray meeshuu Ozil oo ciyaar quraanku akhrisan jiray ya Ozil buu dhagay jiray markuu Ozil quraanka akhrinayo Ronaldo waxaan dareemayo nabad baan dareemayo leeyahay qalbiga waxaan ka dareemayo nabad iyo wad qalbiga ii qaboobayo leeyahay Cristiano ma sida dhahaya Cristiano ayaa sida dhahaya in kale marka ciyaartoy kubadda cagta aragto ninkan waa ninka ugu dhow ee diinta islaamku ilaahay ku hidayn karo yani uu qaada karo diinta islaamka marka Ronaldo wuxuu aad u dhageysan jiray Ozil quraan akhrinaya wuxuu leeyahay markuu Ozil quraanka akhrinaya Ozil wuxuu yiri Ronaldo waan arki jiray waa soo dhawaan jiray xilliga quraanka akhrinayo Ronaldo wuxuu yiri qalbiga baa ii qaboob jiray markuu quraankaas akhrinayo kulaha runtii wax kale aan dareemi jiray qalbiga baa ii qaboobayay wanaag baan dareemayay xasilooni baan dareemayay cool qaboob banaan baan dareemayay uu leeyahay Cristiano Ronaldo marka wuxuu leeyahay waxaan qirayaa inaan anigu aad u jeclahay quraanka dadku la aad uma dareensana buu leeyahay sidoo kale ninka la yiraahdo Cristiano Ronaldo waxyaabaha ku cadeynaya inuu islaamnimada uu aad u jecel yahay waxa ku cadeynaysa islaamku iyo waxyaabihiisa uu raadiyaa markuu Ozil quraanka akhrin jiray wuu dhageysan jiray wana ku sheegaya inuu qalbigu qaboob jiray sidoo kale ogow maalmo kamid ah ayaa waxa uu Ozil baa wuxuu ka sheekeynayaa Cristiano Ronaldo iyo sidoo quraanka u jeclaa iyo diintaba u jeclaa yani waxyaabaha islaamku dhaqanada islaamku aad u jeclaa wuxuu yiri mar baan qolka labiska ku jirnay ya macnaha Ozil waxa looga bartay qolka ku jira labiska wax walba waxyaabaha wuxuu sameyn jiray magac Ilaahay bismillah uu dhigi jiray bismillah ayuu dhigi jiray maalmaha kamidaba Ozil wuxuu ilaabay inuu bismillah yiraahdo oo Ilaahay magaciisa ku bilaabo ya wax walba qofku bini'aadam qabanayo magac Ilaahay buu ku bilaabo Soomaa marka qolka darbedelashada baan ku jirnay buu leeyahay maalin baan ilaabay buu leeyahay bismillah iro wixii aan dhigi jiray inaan ilaabay baan ayaan arkay buu maalin baan ilaabay inaan bismillah yiraahdo Ronaldo ayaa isu xasuusiyay oo ugu yiri uu leeyahay wariya Ozilow waad ilowday maanta inaad tiraahdo bismillah ya waad ilowday inaad tiraahdo Ronaldo bismillah marka cimaamadaas lama haysan karo odaygu cimaamadiisa marna garabka lagu ma haysan karo oo Ozilka waxa loo bataqana Ozilow waad ilowday inaad bismillah tiraahdo ya inaad bismillah tiraahdo oo magac Ilaahay ku bilowdo waad ilowday baa leeyahay Ozil ilaahay magaciisa ku bilaabi jiray Ozil kiyaaba loo sheegay waxa leeyahay war Ozilow waad ilowday inaad tiraahdo bismillah Ozil baa ka sheekeynay Ronaldo sidaa inuu ahaa sidoo kale arimaha ku aadan Cristiano Ronaldo iyo islaamnimadiisa iyo sida uu muslimka iyo islaamku u jecel yahay inkastoo Ronaldo muslim ahayn haddana muslimka Ronaldo uu jecel yahay tusaale ahaan Cristiano Ronaldo marbu 40 gool dhaliyay xilli ciyaareed La Liga haddaba Golden Boot-kii abaalmarintii gool dhalinta uu ku guuleystay Cristiano Ronaldo wuu sadaqaystay waxaana uu sadaqada ku bixiyay uu leeyahay muslimiin ku nool Falastiin ayuu ku sadaqaystay Ronaldo kabtiisa gool dhalinta ayuu gaday ayuu iibiyay 40 gool uu ku qaaday gool dhalinta xilli ciyaareed Ronaldo 40 gool La Liga ka tuuray waxa uu leeyahay xilli ciyaareed Ronaldo wuu sadaqeeyay kabaha buu iibiyay lacabihiisa qayb ayuu ku uu hidiyay ama uu ku sadaqaystay Falastiiniyiinta dagaalka lagu hayo ee muslimiinta ya Ronaldo uu siiba leeyahay iyo sidoo kale mar dhaweyd Cristiano Ronaldo wuxuu dhaqaale ugu deeqay caruurta dhibaataysan ee Syria oo iyana muslimiin ah
Ronaldo marka waa nin naxariis badan inkastoo isagu muslim ahayn hadda isagu muslimku uu jecel yahay islaamnimadu uu jecel yahay war ninka dhahayo war isla bisinkii baad ilowday ninka dhahaya ee ku dhahayo quraanka markii la aqrinayo qalbiga ii dagaya ku dhahaya islaamka meelo badan lagu arkay isagoo yacni wax siinaya qamrigu ma cabo aabiba qamrigu dhimtayo alcoholista aha yani alcoholic aha ya qamriga isagu ma isticmaalo taatuuga jirkiisa kuma qoro no wuxuu leeyahay qofka taatuuga jirkiisa ku qoro dhiig ma bixin karo sidaas daraadeed dhiiggiisi u bixiyo jirkiisa kuma qoro waxyaabaha taatuuga iska ciyaartooga isticmaalaan marka odagu waxa ay tahay markii Madrid uu joogay ninkan markuu ku dhawaaday diinta islaamka qaatabay Cristiano Ronaldo markuu Madrid joogo waxa xilliga ugu dhaweyd ninkan uu diinta islaamka qaadan karay bay yahay hadda Juventus buu dhex galayo waxa weeyaan hadda loo fajista dhexda ka galay oo Chaliniyaynaya Bardesdeskiyaynaya Barujiyaynaya waa odagu waa hadda ya kollay waa ninka ugu dhawaaday ciyaartoy war xubinta idin kuma rahay waa kee ciyaartooga kooxu u soo ciyaareen ku guuleysan Champions League hadda si William ku guuleysan waa Inter waa Ajax waa Barcelona waa United ya waa ninka la yiraahdo wayaan maxaa la yiraahdaa Ibrahimovic waa ninka ka ciyaartooga aan ka hadlaynay waa Zlatan Ibrahimovic dad badan ayaa iyagu isku soo dayay oo jawaabta soo bixiyay Zlatan Ibrahimovic marka isagu 6 koox uu soo ciyaaray ya dhammaan 6 koox oo Champions League guuleysteen isagu kuma guuleysay Champions League Ajax Barcelona Inter Juventus Milan iyo Manchester United bay ahaayeen haddaba dad badan baa isku soo dayay asxaabta kamida Khadrow Abdullahi Hussein Bareed jooga Canada Ramadan Kareem buu saaxiibaan ku salaamay waa Ibrahimovic buu leeyahay wadadka ugu soo horeeyay barnaamijka jawaabna soo qaadanayna sidoo kale sanad Khadrow magaciigu waa Maxamed oo jooga Kenya jawaabtu waa Ibrahimovic ciimadii ku soo tuur war ciidamadaada ma haysta saaxiib yaa kale corona ya war corona waa nawaalay naga dhaaf geedka ilaahay dhinaca naga mariye haye Cabdirashiid wuxuu leeyahay waa Ibrahimovic Maxamed Khadrow waa runta haye Luis Nazario ma aanu hayn dalima ma aanu hayn Ibrahimovic wayaan Axmedow sida uu sheegay dadka dad badan baa ka soo jawaabay sidoo kale waxa ku jira magaciisa Usman Axmed oo joogo South Africa jawaabtu waa Ibrahimovic waa runtii isaguna ninka cimadiisu ma haysano okay yaanu muuqaalka naga dheeraanin dad kale isku soo dayo Khadrow waa Axmed oo jooga degmada warta nabadda waa Ibrahimovic buu leeyahay waa runtii Khadrow waxaan jooga Saudi Arabia waa Ibrahimovic buu leeyahay waa runtii ya Ibrahim ya maya ayaa Ronaldo Brazil waaya maya Brazil ma wuxuu ahaa Ronaldo Zlatan Ibrahimovic buu ahaa wuxuu leeyahay Khadrow waa ku salaamay iska tur ciidamada uu su'aashu waa Ibrahimovic buu leeyahay shiine asxaabta waa ku ugu horay ka soo jaabayo kuwa qaybta dambe barnaamijka ka soo jaabay haddana laba hal ka dhaxno war kuwa kale isku soo dayo Sakari wuxuu leeyahay Maxamed Khadrow waa Ibrahimovic waa Maxamed Amin wuxuu leeyahay Kismaayo jooga waa ya wuxuu leeyahay Maxamed Amin oo jooga Kismaayo nin alla dartiis ayaan ku jecelahay adigu ayaa la igu dilaa uu leeyahay jawaabta Ibrahimovic mahadsan saaxiib ciidamadaadu ma haysto waxa weeyaan anigu wari uu ka dilaa macnaa Maxamed Amin oo Kismaayo jooga Kismaayo waxay kamid tahay meelaha aan ugu jecelahay in imaado oo aan ku soo imaamato aan kubad ku soo ciyaaro aan ilaahay dartiis baan ku jecelahayo jawaabta uu bixiyay waa Ibrahimovic buu leeyahay kooxuuna uu soo ciyaaray waxa kamid ah uu leeyahay dhammaan Juventus iyo Barcelona iyo Milan iyo Ajax Inter Milan United dhammaan way qaadeen barnaamijkeeni waa dhagaytaa bari iyo barnaamijkeeni kala noo balana oo ku soo qaadan doono qodob cajiib iyo ciyaaraha waxyaabaha records ka ah nabadgelyo